السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا تسا تيرتين جيل موضوعا وحوري لليهي مواضيع ديني هروسو سعوتي علم الاجتماع أنبا علمي قبولشدا وعين كسو هذا لني قبيالدي يا مشاكل كيدي وحا كلاين كسو هذا لني نظامك يفهمك نظامك ما أنتو حن دوننا إنو كهذا الله مشروعا لا يلاحظو كعانك وحلا يا بيرجع كعان مركز مقشو إن أدو فهمت أون دينا كشكين أيو تاريخي يدولدينا سو مرتي سغاري لحدنكي إلا كوبي سغاشنكي لكن ereygan maanta waxaan u soo qaatan uga maarmi waayay kacaanka ereygan wuxuu la xidhiidhaa intiisa badan afkaar marka waxaan maanta ka hadlaynaa waxa weeye waa afkaar marka waxa weeye inaynu laba mashruuc isbarbar dhigno aynu aragno maanta keen u baahi badannahay sidoo baan u aragno farqiga oo fikirka kacaanku keenay marka labada mashruuc ay jira waxa weeye mashruuca caadiga ee naqaanay la yiraahdo at-tanmiya ama waa horumarinta talahan oo kale horumarinta beeraha horumarinta warshadaha yaani ay sheeg horumarinta wadooyinka waxa la yiraahdaa waa tanmiya waa horumarin weeye amba kubcin hadii laakiin ay noqoto kacaan amba waxa la yiraahdo af carabiga nahda waxa inta badan ay ku janjeedha amba ay u janjeedha afkaarta weey marka horta inagu maanta waxaan u baahanay mashaariicdan ugu baahi badan hadeen mujtamaca Soomaaliyeed nahay maadaama aynu nahay mujtamac burburay oo taariikh dheer burbursanaa in horti mashaariicda ugu badan la geliyo dadka afkaartooda iyo yaani fikradooda in wax laga bedelo waayo maadaama burburinagu yimi de fikirkeena uu isbedelay sida marka aynu hagaajinayno maanta wadooyinkeeni ee aynu hagaajinayno warshadaheeni ee aynu u rabno aynu dadaalayno inaynu noqono ummad dib u toostay oo wax qabsatay ay ahayd in looga shaqeeyo aqligeena iyo afkaarteena si iyaguna u noqdaan qaar horumaray marka hadaan tusaaleedina siiyo qayaxida oo aan sii wato ugu macquulsan ee la xiriirda kacaanka waxa weeye waa afkaar nool oo la geliyo bulsho dib u dhacday ama burburtay taasoo waqti la falgashay waqti kadibna dhashay xadaarad cusub amba gelisay xadaarad cusub xadaarada laftirkeedu marka conclusion hoos loogu daadago waxay ku biyo shubanaysaa waa go'aamo marka mashruuceena soo socda oo dhowr xalqadood naga qaadan doona waxa inagu ka hadlaynaa un hadafkeenu ma aha inuu yahay mashruuca kacaanku mid siyaasadeed oo doonayno inaynu xisbi siyaasadeed kaga dhawaaqno ma aha mid aynu ku hagaajinayno dhaqaalaha iyo horumarka walxaha maaha laakiin waxa weeye mid aynu ku hagaajinayno go'aan qaadashada qofka Soomaaliga ah marka qofka Soomaaliga go'aan qaadashadiisa hadaynu hagaajino waxaynu hagaajinay inuu qofkaasi keeno horumar iyo xadaarad way xadaarad waxa ku soo ururtun go'aan marka waxaan doonaynaa inaan dhowr video soo bandhigno oo la xiriira sideeba qofku go'aan wanaagsan uga qaadan karaya noloshiisa ta guud iyo tamaalinlaha ah ta khaasa ta mujtamaca aynu fikriyan u aasaasi karaynaa qof Soomaaliya oo fikirkiisu saliim ka yahay dhammaan wixii fikir xuma ahaa ee ku keenayay inuu dib u dhaco ama takhalluf la imaado hadii salahan oo kale ay tusaaleynaysiyo yaani waqtigii rasuulku soo baxay jahiliyada halkii carabtu ay marisay waa ogeydeen markuu afkaartii iyo diintii rasuulku la yimid ilaa Yurub kaleey salaatu wasalaam bay degaadho waa arkiseen halkii gaadhay maanta iyaga laftirkoodii 10 ka qarni ayaguba ay ku jireen madowga markii kutubtii muslimiinta ay turjunteen ee xadaaradii muslimiintu ay gaadhay mudday la falgashay wixii ka dambeeyay marka qarniga 17 19 dawaad Yurubtan ogeyn baas dhalatay hadana marka waxaan ka wadaa waxa weeye in dadkii horti afkaartii loo keeno oo mashruuc fikreed la keeno dadkii wax laga bedelayo afkaartoodii si iyaguna u noqdaan dad wax keenay oo horumaray oo sameeyay xadaarado marka tan doonayna kala fahantaan waa labada mashruuc weey marka mashruuca inagu aynu wadnaa aynu doonayna inaynu keenno bulshadeena u baahan tahay baahida ugu badan loo qaba ma ahan ilaa mid dhisano inaynu ma garanaysaa ay sheeg caafimaadka wax ka bedelno kaga daranta labada mawduuc way iskeenayaan waxa weey waxa isku yihiin asaaskii iyo advance salahan oo kale guriga iyo labanka iyo seeska iyo shubku waxay noqonayaan mashruucan ah fikirka ah daaqadaha iyo albaabada iyo jiingada iyo rinjiguna wuxuu noqonayaa mashruuca ah tanmiya ama mashruuca horumarka walxaha marka hadaynu maanta dhan rinji keeno oo aynu albaab keeno oo aynu jiingad keeno laakiin aynu dhisin guriba waxa weeye waa laamid ma ku arkaysaa nin kolba albaab sito oo ku dhaafaya iyo nin kolba ma garanaysaa jiingad sito ku dhaafayo ma arkaysaa dawaad yaabi adama fahanti markaas ay isku fahantaa waxa weeye waxa isku yihiin sida albaabka iyo daaqadu iyo jiingaduba dowr ay u leedahay fikirkuna wuxuu u leeyahay dowr asaasiya bulshada laftirkeedii marka inaynu maanta dhan ka soo fadhiisano meel aan guriba ka dhisnay aynu nahan albaab ha la keeno oo warshadaha noloo keeno oo wadooyin ha noloo dhiso oo ma garanaysaa ay sheeg caafimaadka ha la hagaajiyo oo ma garanaysaa waxbarashada ha la hagaajiyo de horti maxaa la hagaajiyaa meesha guriba kama dhisnay waxa weeye waa nin meel banaan fadhiyo dalbanaya albaabo iyo jiingado
iyo daaqada dalbanaya weeyidi sidoo kale waxaad ka fahmaysaa inuu inagu yani arinta fikirka aynu baahanay markaad imika dadku wadamada kale ay tagaan waxay la yaabaan waxay kuwana intaasoo milyan bay isku maamulaan siday suurtagal u tahay inagoo intaasoo milyan ah oo ka yar intaynu doonno waan awoodi kari la'nahay inaynu laba wax isku waafaqno iyagoo malaayiin qaar maaha bilyan isgaadhay ayay noloshoodii maareeyeen markaasay wadan samaysteen markaasay socdeen markaasay horumareen qisadu waa halkay markaa waa inagoo afar midha oo isku diina oo isku luuqada oo isku dhaqana waynu isku fahmi kari la'nay iyagoo malaayiin mumalyana ah oo intaasoo diimood iyo intaasoo dhaqamo ay ku jirtaan ay isku fahmayaan marka waa arrinta yani qof walba uu la yaabayo waxa weeye meesha ka maqan waa mashruucan meesha waxa yaala mashruuc fikireed inagu ma isweydiisay weli 69 ilaa 19 weli marka 5 sano burburka laga yimaado 69 ilaa 86 de Soomaaliya maxay samaysay ma isweydiisay weli de Soomaaliya waxay samaysay waxaan naba caadi ahayn incredible oo taariikhda dib u soo akhri waqtiga waxaynu sameynay waxayna loo yimi afkaar bay noo timi danna dadka way qanceen kadibna waatii xadaarada iyo horumarkaynu sameynay dee adduunkuba ka yaab marka horti dee waxaabaad ula yaabaynbaba inagaa tan hore u samaynay markaa tahay ina seegan ee aynu moogannahay waxa weeye mujtamac Soomaaliyeed haddaynu nahay inaynu dib u dhisno afkaarteennii caqligeennii aasaaskeennii kadibna aynu dalbanno inaynu hagaajinno wixii material ah amba wixii walxa ah iyagana in la hagaajiyo sidii wadooyinkii iyo laamidii iyo dhismihii iyo magaranaysa ay sheeg muxuu ahaa waxbarashadii iyo caafimaadka loo imaado laakiin in la horreysiiyo oo weliba mashaariicda aad loo badiyo oo wacyigelin fara badan la sameeyo oo dhammaan wixii aqoon-yahana ee ummadda yani aqoon fikriyana ku biirin karaya ay soo diyaariyaan barnaamijyo ummadii lagu wacyigeliyo lagaga saaro marxaladan si hadhowna ay u noqoto mid keenta xadaarad cusub marka insha Allah ta'ala san rajeynayo maalmaha soo socda haduu Ilaahay yiraahdo dhowr xalqadood oo kala duwan oo la xiriira fikrada iyo hagaajinta go'aan qaadashada aynu ka hadli doonaa aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.